sidii odayaashu yiraahdeen horta waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda Cabdiwaaxid iyo saxaafadda sidoo kale waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatada ay ka dhacday meeshaas oo dadka ay wada degan yihiin oo galdogob iyo u dhaxaysa mataqaana dushaas oo dadka walaalaha aniga waa laga aqoon yahay dhulka nimanka leelkasa loo geystay oo walaalaheena oo deriskeena oo wanaag naga dhaxeeyo aniga waxa la yiraahdaa Maxamed Diina Xasan xildhibaanka dadkaas walaalaha oo dhibaatada geystay xildhibaankoodii baan ahay waxaan aad si tiraanyada uga xunnahay sidaas waxaas wax magaratada dhibaatada ay geysteen oo waliba soo noqnoqotay waxaan codsanaynaa walaalayaalow wixii dhintay Ilaahay ha u naxariisto wixii nool la maaragtay Ilaahay dhaawacana Allah caafiyo sidoo kale waxaan codsanaynaa hadda waad ogtihiin dad way aragaha tihiin dhibaatada sida u dhacday wax kulay ummadana ku tashatay ama dad og yahay maahan waxaan anaguna isku dayaynaa insha Allah anagoo la kaashanayna dadkaas dhibaatada geystay ama dawlad ama dad ama degaan inaan wax ka qabanno waxaan ka codsanaynaa adigu dhinacina inaad xakameysaan waad ognahay inaad xakameysaan wax badan leedku xadgudbay aadaan uga xunnahay walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa arintaas inay sida ay dibkooda idinku dhacay anagana waa noogu dhacay xanuunku waana wada hayaa inaad si maaragtay aad u samirteen aad u xaq jirtaan anaguna insha Allah ta'ala sida ugu dhaqsiyaha badan wixii awooda iyo tabar ma hakranayno wax hagarina uma jiraan tala aan ku midaysanaana kuma dhicin sidaas ayaan ka codsanaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa waxaas dhacay wax ka dambeeya inaysan dhicin kuwa kale laftooda waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan dadka dhibaatadaas ka shaqeynaya waa la xisaabtami doonaa waxa ay geysteen waa maaragtay maahan xoolo iyo maaragtay meel ilaa dad maysa baabiin mad weeye dadka ay ka dhasheen baa xisaabtamaya annaga la xisaabtamayna ilaahay baa kula xisaabtamaya waa in la joojiyaa fidnada dadka dariska in loo geysto intaas ayaan maaragtay aad iyo aad ugu codsanaynaa walaalayaal waxaan ka codsanaynaa arintaas inay si degdeg ugu noqonaynaa inay sida meesha ay maanta joogto samafalkeeda iyo wanaageeda kaliya laga aado laga joojiyo wax dambe oo reaction ah wax kasta oo dhacana walaalnimo lagu dhamaysto insha Allah ta'ala aad baad u mahadsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh